kulankan waa mid ballaaran ayna ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay kamid ahaayeen odayaasha dhaqanka culimadiinka dhalinyarada haweenka siyaasiyiin reer Galmudug iyo sidoo kale maamulka degmada Dhuusamareeb ayaa lagu taageeray habraaca ay soo saareen guddiga doorashooyinka dhismaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug oo muddooyinka ugu dambeeyay howlihiisa ka waday gudaha caasimadda Galmudug kadib markii ay soo magacawday wasaaradda arrimaha gudaha dibishiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu horeyntii munaasabadda ayaa waxa ka hadlay qaar kamid ah odayaasha saxiixayaasha oo ayagu goobjoog ka ah munaasabadda waxaana ay sheegeen inay si weyn ugu faraxsan yihiin habraaca ay soo saareen guddigu taageerno go'aankii ka soo baxay guddiga doorashooyinka Galmudug waxaan leeyahay waxa la yiri raticaal ku raagay saarin ma diido waxaan leenahay waan raagnay waan daahnay abtoo ah waxa guddigu maanta ku dhawaaqay in 25 oo maanta aheeday laga bilaabo oo socdo doorashadii Galmudug ay furan tahay laguna qatimayo 23 December sameeysan ilaahay haydina garab galo waxaan rabnaa gobolku inuu gobol noqdo in dadku dawlad helo annagu waxa weeye caawa duca mooyaane wax danoona la weydiiyaa kale ma jiraan iyo dadaal dawladda aan soo dhisno marka caawa yaana ku daalin annaga jecel wax walbaba waxa la weydiiyaa qofti leesleeya ama shaki laga hela annagu shaki ma qabno hadda oday dhaqameedna waxaan doonaynaa inay dawladdu dhisanto in dadku heshiiyo in maamul la yaqaan la helo kulankan aan isugu nimid oo ahayd guddigii farsamada ee maamul sameynta Galmudug oo gudoomiyuhu maanta uu bayaan ka aqriyay habraaca bahal saxaafadda intaas annaga la dhacsanahay oo doonaynay inaanu taageerno garab istaagna guddiga iyo xubnihiisaba waxaan hore ugu baaqnay marka guddiga in annaga odayaasha haddana albaabkeenu furan yahay ayaguna in albaabkooda furaan in muddaabay wax xeerinayeen oo isleeyahay ku howlanaayeen hannaankii ay wax loo maamuli lahaa iyo sidii lagu wadi lahaa maanta ay soo kala cadaatay waxaan leenahay guddiga iyo guddoonkiisaba waxaan leenahay odayaashana inta waxgaradka saxiixayaasha waxaan diyaar u nahay inaan shaqadeena bilowno habdabayntii goobta waxa ka hadlay gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb Macal Nuur Cilmi Cabdulla wuxuuna aad wax loogu farxa ku tilmaamay habraaca ay soo saareen guddiga oo uu sheegay inuu yahay mid waafaqsan sidii lagu heli lahay maamul mid oo loo yagleelo bulshaweynta reer Galmudug wuxuuna bulshada Galmudug ugu baaqay inay guddiga iyo guud ahaanba dawladda la shaqeeyaan waxaan leenahay bulshada caasimadda bahda reer Galmudug oo halkan fadhisa dhamaantood inta maqana matalaya waxay garab taagan yihiin oo gacan siinayaan go'aamada ka soo baxay guddiga maamul u sameynta Galmudug maamulka caasimaddu waa anaga siyaasad kale waxba naga ma quseeyaan waxaan diyaar u nahay inaan gogol u noqono bahda Galmudug soo dhaweyna cid kasta oo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug oo muddooyinka ugu dambeeyay howl hufanaysa ka socon ayaa xilligan waxa dib uga bilowday howlaha istabajooga oo guddiga farsamada iyo dhismaha maamul goboleedka Galmudug ee dawladdu u soo magacawday ay soo saareen jadwal ka soo bilaabanaya 25 bisha November kuna eg ilaa 23 December oo lagu dooranayo madaxweynaha Galmudug Cabdi Jamaal Macalin Axmed Kalsan TV Dhuusamareeb